بسم الله الرحمن الرحيم dhammaan dadka halkan isugu yimaadashan oo ugu horeeyaan oqaasha hooyaday Safiya Ali Haaji oo halkan fadhida dhammaan dadka waxgaradka culmaadiinka dhalinyarada saxaafadda askarta dhammaantiin waxaan ku salaamay salaanta islaamka assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waqti waa gaaban yahay maghrib baa la galay waa idin la joogayaa maalmahan beritana shir weyn baan leenahay oo halkan la isugu iman doono oo laga wada hadli doono daalad waxyaalo fara badan waxaan rabaa saddex qodob inaan taabto qodobka ugu horeeya waxa weeye wax badan baan runtii kulligaan ba sugaynay inaan soo nimaano oo qorsheynaynay oo ka shaqeynaynay duruufo badan oo jira daraadood way adkaatay horena isugu nimaano laakiin maanta markaan soo aadnay walaahay noo sahlan aan garow nimaano waa maqasheen in qolyo ay isku dayaan in la joojiyo inaan kulankeenu dhicin tan ilaahay ayaa ahaatay waa nimi wax khasaara ma dhicin laakiin wixii aan ka yeeri lahayn baritaan u daasanaynaa iyo shirkeena guud odayaashana waa hadalay waana ka tashan doonaa haddii alla idin tan labaad waxaan rabaa dhammaantiin in aynu mahadnaqo runtii soo dhoweynta diiran ilaa magaalada bannaankeeda ilaa hadda halka joogtaan fardihii soo dhoweyntii diiranayd rag iyo dumar carruur iyo ciroole dhammaantiin aad iyo aadaan ku mahadnaqayaa inta ayaan ka badanba waa idinka filaynay annaguna magaaladeedii baan nimi runtii dad la soo dhowna ma nihin marti ma nihin laakiin waa soo noqonnay waxaan rabnaa inaan ka wada hadallo waxqabad iyo isku tashi iyo wada tashi iyo sidaan gacmaha isu qabsan lahayn waxyaalihii yararaa naga soo horreeyaan horu qabannay wax ka waaweyn baa soo socda waxaan rabnaa inaad taa ku niyadsamaataan ogaataan in aan runtii dhammaanteen aynu degaankeenna u kacno wax wada qabsanno arrimahaas oo faahfaahsanna berrito ayaan kaga hadli doonaa kulankeenna dambe haddii alla idmo dhammaantiin waxaan rabaa koox inaan ula kulmo hadday dumarka noqon lahayd dhallinyarada sportskii maalinta dhawaad noo yimi highland odayaasha dhaqanka culimaadiinka gabdhaha kulligiin waxaan rabnaa insha allah inaan qolo walba maqaamkay mudan yihiin iyo goobtooda iyo si gaar aan u wada hadallo haddii alla idmo waxaa muhiim aan kula dardaarmayaa dhammaantiin oo aan rabaa inaan runtii hoosta ka xariiqo inaan nabaddiina ilaashataan haddii aan nabada jirin intaanaas isuma nimaanaya maanta fadlan waxaan idinka codsanayaa waxyaalaha maqlaysaana siyaasadda dhacaya wax qabiil maaha wax reereed maaha waa wax shakhsiyaad iyo siyaasiyiin iyo dad qowlowsataa wataan nabaddiina ilaashada dadka dariskiina si fiican loo noolaada dadka soomaalida oo dad walaalaa oo wax walba ah oo isdhalay oo ehela inay ehelnimada iyo wax walba ilaalisaan taasaa muhiima waxaan inagu siyaasad ahaan uga tashanayno deegaan ahaan iyo waxqabadkeennana saan sheegay shirkeenna guud ee berito ayaan kaga hadli doonaa haddii alla idmo aad iyo aad u mahadsantihiin soo dhoweynta mar kale waana isu soo noqonaynaa waana wada joognaa dhammaantiin oo idin mahadnaqaya waxaan rabaa inaan halkan ku soo dhoweeyo si uu shirka qaybtiisa hore inoogu xiro suldaan maxamed cabdullaahi cartan oo aan rabno inuu suldaanku qaybta noo soo xiro si beritaan u godo maalgelinta bangiga salaam waxa uu kula diyaariyaa maalgelin waafaqsan shariicada islaamka waxa uuna bangigu ku maalgelinayaa wax kasta oo geli kara iib xalaal ah sida guryaha gawaarida badeecooyin kala duwan iyo wixii la mid ah alaabta uu bangigu ku maalgelinayo lacagaheeda waxaad iskaga bixin kartaa si tartiib ah ama billo ah